بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعن داوديال كسو دوادا برنامجka xulashada HBN qodobada aan idin kugu hayno waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Gaza oo galay maanta maalintii 7aad dagaalo culus ayaa lagu soo waramayaa xalay iyo saakay inay ka socdaan qaybo kala duwan oo kamid ah Mareyka Gaza dagaalada ugu culus ay ka socdaan waa Khan Yunis iyo waliba dhanka waqooyi galbeedka iyo bariga Mareyka Gaza gaar ahaan xaafadaha Shujaaciya Jabaliya iyo Sheikh Radwan wararkii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbinaynaa Israa'iil sidoo kale xalay waxay ka hadashay xilliga ay filayso inay soo afjarto dagaalka xoogiisa gaar ahaan dhanka dhulka sidoo kale barnaamijka waxaan idin kugu haynaa ciidanka Israa'iil oo xalay lagu qasbay inay iskaga baxaan xerada qaxootiga Janiin ee daanta galbeed ee la haysto halkaasi oo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay dagaalo culus ay ka socdeen sidoo kale barnaamijka waxaan idin kugu haynaa Erdogan iyo Biden telefonkii dhex maray xalay maxaa laga wada hadalay maxay ahayd hadalkii la yaabka lahaa ee madaxweyne Erdogan uu ugu jawaabay madaxweynaha waddanka Mareykanka markii uu weydiiyay goormaad aqbalaysa Sweden inay ku soo biirto gaashaanbuurta NATO wada hadalkii labadina dhex maray oo ay ka hadashay madaxtooyada waddanka Turkigana barnaamijka ayaan idin kugu haynaa saldhig ciidanka Mareykanka uu ku leeyahay waddanka Ciraaq oo xalay la duqeeyay iyo waliba madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin oo ka hadlay xilliga la soo afjari karo dagaalka 22 bilood ka socda dalka Ukraine ee dalkiisu uu ku lug leeyahay qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin kugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada Anwar Online Academy nalka aad arkayso indhaha nuurinaya waa Anwar Academy oo aad hab online ah diinta uga aflaxaysid Anwar Online Academy waa goob ku caan ah barashada diinta Islaamka barashada Quraanka iyo culumta tajwiidka barashada qiraa'aadka tobanka tafsiirka ahadiista fiqiga siirada naxwaha sarfiga iyo balaaqada kamana marna higaada iyo farbarashada dadka waaweyn iyo caruurta waxaana ay bixisaa xaruntu shahaadooyin iyo jaa'izaad ay ka bixiso xarumaha Kenya iyo Soomaaliya waxayna sidoo kale leedahay maxaadarooyin online ah iyadoo loo eegayo hadba waqtiga munaasibka ah Anwar Online kala xiriir Soomaaliya eber 252 615 eber 156 Kenyana kala xiriir eber 254 726 811 Anwar Online Academy subax wanaagsan mar kale waxaynu ku hormaraynaa dagaalka Mareyka Gaza xalay dagaal culus ayaa socday maanta dagaalku wuxuu galay maalintii 7aad waxaana wararka ugu dambeeyay sheegayaan in dagaalo faraha looga gubtay ay ka socdaan dhanka Khan Yunis waa koonfurta Mareyka Gaza iyo waliba dhanka waqooyiga xagga bari iyo waliba dhanka galbeedka iyadoo dagaalada lagu soo waramayo xooggood inay ka socdaan aaga Shujaaciya iyo Jabaliya sidoo kale xaafada Sheikh Radwan ayaa laga soo sheegayaa dagaalo culus xalay waxaa lagu soo waramayaa in dagaalku uu socday iyadoo saakana mar kale dagaaladu ay bilowdeen ciidanka Israa'iil ayaa isku dayaya in ay wada qabsadaan xaafada Jabaliya oo dagaal culus oo kaga furan yahay laakiin waxa la leeyahay taangiyada iyo ciidanka Israa'iil way nuuxsan la yihiin roob xoog leh wuu jira wadooyinka way xiran yihiin biyo ayaa fadhiya sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa xogaga iska caabinta Falastiiniyiintu inay dagaal culus halkaasi ka wadaan macluumaadka ugu dambeeya waxay sheegayaan in dagaalka xooggiisa saakay uu ka socdo dhanka Jabaliya iyadoo macluumaadkan wariyaashiisa ay soo sheegayaan la tilmaamayo in la maqlayo madaafiicda noocyada kala duwan Israa'iil sidoo kale waxay sii wadaa duqeyn ba'an oo ay ku hayso Mareyka Gaza xaalad adag ayaa lagu soo waramayaa aaga Khan Yunis dad aad u fara badan ayaa ku dhintay xalay kadib markii ciidanka Israa'iil ay duqeeyeen dhinaca kale waxaa soo baxaya macluumaad dheeraada oo ku aadan waxyaabaha imika socda gaar ahaan dhanka Israa'iil sidoona ka warqabno gudaha Israa'iil waxaa ka jirta canaan iyo iscaabaarayn kala duwan oo ku aadan dagaalkan waqtiga dheer qaatay waan idin soo gudbin doonaa goor dhow Israa'iil oo ka hadlaysa xilliga dagaalkan uu dhammaan karo laakiin waxaan jecelnahay inaan eegno wada hadalkii dhex maray la taliyaha amniga qaranka Jack Sullivan iyo waliba ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wargeyska The Wall Street Journal ee ka soo baxa waddanka Mareykanka ayaa waxa uu ka soo xigtay saraakiil Mareykan ah kuwaasi oo sheegaya in Jack Sullivan
وعلى تليها أمنية قرنك مريكنك وجيدي إسرائيل دجال كان هدو سي دير هذا إن لجيا بقبلك إن عرضنا يكفدو وعلى ليه هي أن سلفان سدوا كلا وحوين وده هذا الكولية شيء مدحد إسرائيل أن كما أنا صابحين أريك كو آدن إيا ضد كو آدن قصارها سو جارية تذكريت كأ عرضنا أنت سعتي وحلا شيء إن مريكنك وججبح الله كل ماي كدمركي لجو إيدي إن إسرائيل وكو تاجيريو جماعتك يدجالك أي كو هاي صدتك فلسطينيين تا sidoo kale waxaa la isku afgaran buu leeyahay wargeysku arrinka ku aadan mustaqbalka Mareyka Gaza sida uu noqon doono warkan waa wararka ugu dambeeya ee arrintani ku saabsan dhinaca kale telefishinka CBS ee laga leeyahay waddanka Mareykanka ayaa isaguna wuxuu baahiyay in Israa'iil ay ku wargelisay Mareykanka in duulaanka xoogan iyo howlgallada ballaaran ee dhanka dhulka ay ka wada Mareyka Gaza lagu soo gabagabayn doono 2 ilaa 3 toddobaad gudahood shabakada ayaa intaas ku dartay iyadoo soo xiganaysa sarkaal Mareykan ah in dhamaystirka marxaladda dagaal ee hadda ay hoos u dhigi karto joojinta la yiri duqeynta isla markaasna diyaarada lagu saari doono weerarada ujeedayn cad laga leeyahay ama weerarada qorsheysan haddaba arrintan maxay qubarada ku macneeyeen qubarada waxay leeyihiin Israa'iil cadaadis weyn baa saaran xagga Mareykanka uu ka saaran yahay maxaa yeelay gudaha Mareykanka wayna ka warqabnaan barnaamijyo ka socda xitaa xarumihii dawladda waddanka Mareykanka ayaa waxa ka jirta gudood ku saabsan taageeradan Mareykanka uu siinayo oo dadna ay ku tilmaamayaan mid hagar la'aan waa Israa'iiliyiinta dadka ku fikirka ah dadna ay ku tilmaamayaan mid indha la'aan ayaa ceeb weyn u soo jiiday waddanka Mareykanka waxaana la leeyahay Biden ma doonayo dagaalka inuu sii socdo wixii ka dambeeya bisha January maxaa yeelay 2024 doorasho ayuu gali doonaa sumcad xumo weyn way ka soo gaartay Mareykankana waxa la yiri waa go'doon dhanka siyaasadda wixii ka dhacay golaha loo dhigahay qaramada midoobay weyn arkaynay marka waxa la leeyahay Biden quddiisa ma doonayo ra'iisul wasaare Netanyahu oo gudaha Israa'iil culays uu ka saaran yahay dagaalkiina ku daba dheeraaday isla markaasna dagaalkii aysan ku guuleysan Israa'iil isaga quddiisa markaa inuu isdhigo dhulka oo macnaha uu isgowraco ma doonayo taas ayaa waxa leeyahay waa arrinta madaxweyne Biden uu ku socdo waaya imika waxaan eegaynaa dhinaca jiniin xirada qaxootiga jiniin iyo waliba dhanka daanta galbeed dabcan sidaad kula socoteen wararkeenu ugu dambeeyay dagaal xoogan ayaa ka socday maalmihii la soo dhaafay ciidanka Israa'iil waxa la sheegay xalay in lagu qasbay in laga soo saaro xirada qaxootiga ee jiniin kadib markii dagaal ba'an uu ka dhacay xiradaasi waxaana lagu soo waramayaa dagaalkan inuu ahaa mid aad u qaraar oo maalmihii la soo dhaafay halkaasi ka socday warbaahinta ayaa tibinaysa in ciidanka Israa'iil ay xalay ka gurteen xirada qaxootiga ee jiniin halkaasi oo maalmihii la soo dhaafay ay kula dagaalamayeen guutada jiniin ilaa 12 qof oo Falastiiniyiin ayaa ku dhimatay 3 maalmood oo Israa'iil ay ka waday dagaal Israa'iil waxay sheeganaysaa ilaa 7 askari inay kaga dhaawacantay ilaa 700 qof baa la xiray maalmahaasi waxaana wararku sheegayaan in ilaa 20 guri la burburiyay guutada jiniin guutooyinka Qudus ayaa waxa iyaguna ay sheeganayaan in ciidanka Israa'iil ee ku sugnaa xirada qaxootiga ee jiniin ay u geysteen weeraro toos ah qaraxyo waxaana ay tilmaameen inay baagsadeen macluumaadka ugu dambeeya wuxuu sheegayaa in ciidanka Israa'iil lagu qasbay xalay inay ka baxaan aagaasi 3 maalmoodna waxa la sheegay halkaas inay ka wadeen dagaal baahsan sida wararka ugu dambeeya imika ay tilmaamayaan waa hagaag intaanan ka bixin wararka dhanka Falastiiniyiinta imika waxaynu eegaynaa wadahadal qadka telefoonka oo xalay ku dhex maray madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden iyo dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan wadahadalkan sida ay sheegayso madaxtooyada waddanka Turkiga wuxuu ahaa wadahadal muddo dheer qaatay warbaahintan waxay helaysaa xogo dheeraad oo ku saabsan kulankan waxyaabihii wadahadalka qadka telefoonka waxyaabihii looga wada hadlay horta wicitaankan waxaa sameeyay madaxweyne Biden Erdogan buu soo wacay kadibna waxay warbaahintu sheegaysaa
in laga wada hadlay arrimo kala duwan laakiin arrintu waxay qaraaraatay waan idin soo gudbin doonaa qodobada laga wada hadlay laakiin meesha ugu adag ee dooda adag ka dhacday waxay ahayd Biden markuu su'aalay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan goormaad aqbalaysaa in Sweden ay ku soo biirto gaashaanbuurta NATO arrintaas aad buu uga carooday madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan mar allaale markuu su'aashaas weydiiyey ayuu asna wuxuu ku yiri goormaad joojinaysaa dagaalka Gaza يعني سؤاشي اللي ويدي أو كسب سنة قارمات أقبليسا السويدن إنه كسب بيرتجاشان بورتنيت يسوي كتشوا من أيوحير أذوق قارمات جوجينيسا دجال كقزة مركا كدب أردوغان ورقد بصوصاري بيان بصوصاري وربعين التركي جنوا كهلا سأرنتن وعلى ليه هي مدحونها تركي رجب دايب أردوغان أي أوجب باقي مريكان كإن أصوا أفجروا حسوق إسرائيل أي كود قزة isagoo sheegay in Mareykanku mas'uuliyad taariikhi ay ka saaran tahay xaqiijinta xabajoojin joogto ah hadalka Erdogan ayaa ku soo beegmaya xilli qadka telefoonka uu kula hadlay baa la yiri dhigiisa Mareykanka Joe Biden iyadoo madaxweynaha Turkiga carabka ku adkeeyay in masiibada bini'aadantinimo ee Gaza ay tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo sidan waxaa sheegay agaasinka isgaarsiinta ee madaxtooyada Turkiga ka hor baaqi Erdogan wuxuu ku celiyay Gaza inay tahay dhulka Falastiiniyiinta gaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxtooyada Turkiga isagoo soo xiganaya hadalka madaxweyne Erdogan wuxuu yiri haddii Biden uu aaminsan yahay in Gaza ay tahay dhul ay qabsadeen dad soo duulay oo aanay lahayn buu yiri Falastiiniyiintu markaas suurtagal ma ahan in aynu wax ku heshiino yani macnaha waxa weeye hadaba aaminsan tahayba in dhul la haysta ay tahay Gaza wax aan ku wada hadli karno iyo waxaan ku heshiin karna ma leh way macnuhu intii uu socday wada hadalkan baa lagu yiri Erdogan wuxuu sheegay in Mareykanka looga baahan yahay inay joojiyaan taageerada shuruud la'aanta ah ee Israa'iil ay siinayaan ayna xaqiijinayaan sidii xabajoojin degdeg ah loo gaari lahaa isla markaasna caalamka iyo dadka Mareykanka waxay dalbanayaan la sameeyo dabcan wuxuu ka wada barnaamijyada iyo baaqyada dagaalka in la joojiyo lagu dalbanayo ayuu soo qaatay wuxuu carabka ku adkeeyay baa la yiri in ay tahay mas'uuliyadda taariikhiga ee Mareykanka si loo xaqiijiyo xabajoojin joogto ah sida ugu dhaqsiyaha badan macnaha xabadda waa in la joojiya ayuu leeyahay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waaya dhinaca kale dagaalkan saameyn weyn ayuu gobolka ku leeyahay Mareykanka saldhigyo uu ku leeyahay wadamada Syria iyo Iraq ayaa la weeraraya Mareykanku waxay sheegeen in ilaa iyo 17kii bishii Oktoobar waa 10 maalmood kadib markii uu bilowday dagaalka duufaanta Al-Aqsa ee ay qaadeen xoogag iska caabinta Falastiiniyiinta waxaa bilaabatay in la duqeeyo danaha Mareykanka ee wadamadaas xalay waxaa la sheegay saldhig Mareykanku uu ku leeyahay wadanka Iraq oo lagu magacaabo Ain al-Asad in la duqeeyay koox isku magacaawday xoogagga iska caabinta Islaamiga ee Iraq ayaa weerarkan qaaday waxaana ay ku sheegeen in ay ka jawaabayaan taageerada Mareykanka uu siinayo Israa'iil iyo dambiyada ay ka galayso dadka Falastiiniyiinta ayaa lagu yiri hadalkaasi waa tahay haatan waxaynu eegaynaa qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka waa madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin oo ka hadlay xilliga Ukraine nabad lagu soo dabaali karo shir jaraa'id oo ku aadan arrimahan iyo arrimaha guud ee caalamka bariga dhexe dagaalka Gaza iyo waliba gudaha wadanka Ruushka xiisada kala dhaxaysa reer galbeedka ayuu ku qabtay magaalada Moscow arrimo badan oo ka hadlay runtii Vladimir Putin madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inaanay aqbali doonin isla markaasna nabad aysan ka dhici doonin Ukraine ilaa Ruushka uu ka xaqiijiyo hadafkiisa taas oo aan waxba ka bedelayn buu yiri iminka waxa socda ku dhawaad 2 sano ayuu dagaal Ruushka waxa uu ku hayaa dalka Ukraine waxaana korortay xiisada u dhaxaysa Moscow iyo reer galbeedka isagoo ka hadlayay shirka jaraa'id ee dhamaadka sanadka ayuu ku muujiyay awoodiisa Putin wuxuu bixiyay tafaasiil naadir ah oo ku saabsan waxa Moscow ugu yeertay howlgalkeeda military ee gaarka ah wuxuu meesha ka saaray baahida loo qabo qorshe labaad oo lagu abaabulayo ciidamada kaydka ee dalka Ruushka si ay uga dagaalamaan Ukraine
talabadaasi oo ahayd mid gudaha waddanka ruushka aan aad looga jeclaysan markii koowaad ee la samaynayay. Wuxuu sheegay in hadda Ukraine ay ku sugan yihiin 617,000 oo askari oo Ruusha, kuwaasoo ay ku jiraan buu yiri 244,000 oo askari, kuwaasi oo loo qoray si ay uga barbar dagaalamaan ciidamada xirfadleyda ah ee dalka Ruushka. Macnaha ciidamada rasmiga ah ayaa loola jeedaa. Waxay ahayd markii ugu horreysay Putin oo aad u xadidi jiray in uu xog siiyo warbaahinta shisheeyaha uu su'aalo badan kala kulmay saxafiyiinta reer galbeedka. Waa tan iyo markii uu bilowday dagaalka waddanka Ukraine. Shirka jaraa'id ayaa ku furmay su'aalo ku saabsan Ukraine, waxaana lagu muujiyay walaaca ay dadka Ruushka ka qabaan mawjado kale oo abaabul ah oo ciidan lagu qorayo. Inkastoo hadalkaas meesha uu ka saaray madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo sheegaya in ciidamada Ruushka iminka ka jooga dalka Ukraine ay ku filan yihiin dagaalka. Wuxuuna sheegay inaysan jiri doonin ciidamo kale oo la abaabulayo ama la qorayo. Waxaana sidoo kale uu ka hadlay arrinta dagaalka Gaza. Wuxuu sheegay xalku inuu yahay qadiyadda Falastiiniinta oo meel la saaro, isla markaasna Falastiiniintu ay helaan dowlad. Wuxuuna ku baaqay degdeg in loo joojiyo dagaalkaas. waa yahay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xulashada HBN. waa inuu barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgelyo. هدايتك قدكتي حنونك الله هي شي دريخ بر إناد هليشو هرتا ومهورانه نور الهداية أونلاين حكميات كهايسان هي هدية ويا قرآن كيف دنتي صار لقاه لهن قاد عربي هذا الكيسان لقو برتا نور الهداية أونلاين وهنتدي نولشينا يا سلام عقيدة وهو كان لأنتد وحباو سياد قوبين نور الهداية أونلاين هدا كاري الحرير مدرسة نور الهداية أونلاين واحد كيليسا برشاد يحفظ دنت قرآن كريم كا برشاد أخرسك يقرست اللغة العربية فهم كبرشاد عقيدة دي أساس كإسلام كا برشاد حديث الرسول كان محمد صلى الله عليه وسلم برشاد صلاة يا أركانتيدا برشاد دعويك يا تربية عروتا وحا كدغ بريال أقون أولى دينتا قرآن كعربية يا تربية عروتا مدرسة وحي كتالا مقالة هرقيسة وحي ففايننا كالعرير إيوانا دشاشة كاغا مقضى kusoo dhawow Safari Remit warkii ugu mudnaayo waliga aad maqashaan hadda ku waramaya kaalay u hesho Safari Remit haddii aad ku nooshahay dalka UK Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo waliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay iyadoo macaamiisha cusubna ku soo dhaweynaysa Sira Balance khidmad la'aan saddexda jeer ugu horeysa lacag diristiisa isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safariremit.com waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud baahi loo qabay Safari Remit Private Walk in Clinic haddii aad bukaan tahay ama ehelka bukaan yahay ama aad bukaan kala bogsiimaad la jeceshahay waxaan kuu bandhigayaa halka baaritaanada Yurub ula bareeraan ilaahayna ku bogsiiyo ee warkan ka bogo Private Walk in Clinic waa xarun dhanka caafimaadka ugu adeegta dadka degan Yurub iyo UK waxayna ku qabanaysaa dhammaan hawlaha caafimaadka xaruntu waxay furan tahay 7 maalmood ee isbuuciiba xarunta Private Walk in Clinic waa xarun caafimaad oo ka diiwaan gashan dhammaan laamaha caafimaadka ee dawladda UK sidoo kalena waxay xaruntu bixisaa membership ku sahlaya in markaa doonto dhakhtar aad la kulmi karto wixii faahfaahin oo dheeriya waxaad kala xiriirtaa telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda